السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maantay كليبkan waa كليب runtii kulul oo aan rabay inaan ku soo bandhigo tusadka Soomaaliyeed madaxweynaha hadda maanta talada haya Xasan Maxamuud dar xilligii uu mucaaradka ahaa ereyadiisii erey kamid ah weeyo oo maalinba meel alla meesha aad rabto asagu ka jawaabaya maanta marka isagoo la hadlaya madaxweyne farmaajo xilligiisii gaabsiga ahaa erayo uu yiri baa idin soo gudbinayaa maanta asagaan ku leenahay sababta waxa u dhiman 8 bilood ka yar baa u dhiman waxa muuqata meesha uu Soomaaliya ku wadana dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waa u muuqata inay wada khaldan tahay kala qaybin qabyaalad jifaysi hub sharci darro ah burburka guryaha shacabka oo had maanta loo baahnayn qabuura la fago oo loo hadda ka hor dhacay oo soo burburiyay wadamada caalamka oo Soomaaliya si fool xun hadda u arka say doontaba ha noqotee dhinac kasta laga fiiriyo shacabka Soomaaliya waxay u jeedaan burburin dowlad goboleedyo amni ah oo dhisnaa oo lagu duulo ciidan loo qaado oo diyaarad lagu gabagabeeyo ciidankii militariga Soomaaliya oo Kenya cararaha oo xuduudaha ka gudba dad shakhsiyad xumo lagu yaqaanay oo la soo jaabiyay oo dib loo soo celiyo si ay isugu diraan dad walaalaha wada degan Soomaaliya isugu laayaan dhinac kasta laga fiiriyo wada khaldan oo nin xigmadu ka dhamaatay jidkeeda ayuu madaxweynaha waddanku hayaa marka mar habeen hadalka ku badiyo بعدين marka u dambeysana falaqeyn doonaa ereyada uu yiraahdo hadda wax in soo gudbinayaa madaxweyne Xasan Maxamuud oo la hadlaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligiisii gaabsiga ahaa la hadlaya marka dhageysi wacan dadka Soomaaliyeed madaxweynaha hadda koor wuxuu yiri aniga waa la naqdin karaa waa la iga hadli karaa wixii khaldan waa la ii sheegi karaa dadka Soomaaliyeed waxaan tusaynaa marka madaxweynuhu qaabka uu waddanka Soomaaliya ku wado inaan lagu qaracsanin dadkuna ku qaracsanin Soomaaliyeed meel kasta adduunka joogaan haddana isagaan idin soo gudbinayaa dhageysi wacan walaalaha aan nahay annaga xigmad kuule aan gacan qabadkaadaan leenahay joog wadada aad ku socotaa meel fiican kuma dhammaato hortaaha ay dad badan qar fataq u yeesay ugu sii hadaafayeen ayagoo u arkaa laaca aragtay laaga moogtay joogtaa laaca fiirino quruxda badan ee 20 sano 30 sano dalka inaad ka talisa ah xagga kaaga muuqdo kaaga muuna qarar badan ka sokeeyo oo laga dhacay ha ka dhicin kaliya haddaad ka dhacaysid warbadiyo joog madiida orod ka dhacan ku dheena laakiin annaga dhamaan nala dhici rabtaa ee nadhig waxaan leenahay dad badan oo Soomaaliyeed oo annagu aan ka mid nahay walwal badan aan qabnaa waxaan walwalka ka qabnaa dadka Soomaaliyeed inay xun yihiin ama qaab daran yihiin ama colaad u taagan yihiin maaha waxaan walwalka ka qabnaa waxa madaxda maanta joogta sida u dhaqmayso oo qaanuunku ugu dhaqmayso oo dawladnimada ugu dhaqmayso waay runtii waa hadal soo xigasho leh oo dadka Soomaaliyeed u kaydka Soomaaliya ayuu ku jiraa hadda marka Soomaaliya meel kasta oo tagto meel kasta oo waraysato meel kasta oo aad ka fiiriso dadka Soomaaliyeed walwal bay ka qabaan inta hadda madaxweynuhu sheegayo sidoo sharci ugu dhaqmahayo sidoo Soomaaliya u hogaaminayo habdhaqanka dawladdiisa dhammaan walwal baa ka muuqda madaxweynuhu hadda koor buu sheegay wuxuu yiri waa la naqdin karaa waa ku celcelinayna dadka Soomaaliyeed ha hadleen danahoodana ha ka hadleen dadka aan u qalmin oo ama dawlad goboleed jooga ama federaalka jooga ama wasiirka ah ama xildhibaanka ah ama madaxweynaha wuxuu doonaa dadka aan u qalmin oo Soomaaliya meesha khaldan ku wada shacabka Soomaaliyeed waa inay toosaan oo ay dantooda gartaan waa inay la hadlaan waxaana kugu filan madaxweynaha hadda hadalkiisa kugu filan marka sharciga lagu tunto oo wixii lagu heshiiyay la burburiyo oo dadka Soomaaliyeed dhigooda la isku diro oo sida awrtii sirk la isku yiraahdo la isku diro oo midiyaha la isugu dhiibo waxa imaanaysa habdhaqan fool xun oo hadda midka muuqda waxaan leenahay marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaad ku haysatay oo dadka Soomaaliyeed tusaysay markaad rabtay inaad meesha ka qaadato arrintaad sheegaysay aday maanta ka muuqata adaa waddankii meel kasta hub laga soo galiyay adaa rasaas la qiimanaya adiga dadka Soomaaliyeed qabiil u sii kala jarjaray adiga hadda maraysaa jifo hoose inay doorasho qabsato oo yiraahdaan waxaan dooranaynaa xildhibaanaan samaysanayna jifooyin ba hadda xildhibaano samaysanaya jifooyin ba hadda soo gadanay kaarayaal iyo beebayaal digsanaya
jifooyin baa hadda islaynahay oo isku dirto waxyaalaha marka noocaas oo kala ah marka ay muuqdaan waxaan soo qaadan doonaa maalin kasta qayb yara oo kamid ah cad kamid ah hadalladaadii oo adiga maanta ka muuqda madaxweynaha hadda ka horna waa u sheegay waa fariinta haddana mar kalena waa u farayaay dila Soomaaliya haddii laga soo baxo nolol qurux badanaa jirto nolol qurux badan oo sharaf badan oo dadkaagu ay ixtiraam ku hayaan oo maxaan ku iraahdaa adigu aad ku noolaa karto oo taariikh fiican leh yaa jirta markaa si fiican uga soo baxdo haddii laga soo qoor qabto laakiin ma lihid intaas fursadaa kuu furan dadkan dad hadda muxuu ahay sida aad ku haminaysaan iyo adiga iyo wiilashaada aad ku fikiraysaan ama aha dad fiican waaye dambiga iyo qaabdarrada laga gelay wiilasha uu madaxweynuhu ka hadlahay waxa weeye wiilasha ciidanka ahaa oo farmaajo tababaray farxaan qaroole iyo raage yarka militariga haysan jiray iyo oo dhihi jiray wiilkaygiiyo ragga uu ka hadlahayo waa rag dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo ciidan ah oo la tababaray oo Soomaaliya loo tababaray ragga uu leeyahay wiilashaada soo u tiiranay raggaas weeye hadda laakiin maanta shacabka Soomaaliya u jeedaan wiilashii asagoo dhalay baan u jeednaa iyo gabdhihiisii baan u jeednaa marka waxaan leenahay madaxweyne nolol baa jirta khayr badan baa jira waxaad qaadan kartay waad qaadatay waxaad dhisan jirtay waad dhisatay wax kugu filan noloshaada waad haysataa hadda kor baad sheegtay wax ugu filan waa haystaa baad tiri 70 baa jirtaa baad tiri adaa sheegay kilib kale oo haddaan hayno ayuu ku arrintaas ka hadashay dadka Soomaaliyeed marka noloshooda ha burburin ha fool xumayn intii hore ay fool xumayd ha ku darin abni ma haysato caafimaad ma haysato biyo nadiif ma haysato ciidan xoog lama haysato xuduud sugan ma haysato hawo xiran ma haysato sharaf caalamka ma haysato dadka Soomaaliyeed noloshooda ha fool xumayn caruurtaada iyo adigu wax idin ku filan waad haysataa shalay waxaad ku eedeynaysay adiga wiilashaad lahayd wiilashaad ka hadlaysana waa naqaan waxay ahaayeen wiilal militariga Soomaaliya loo tababaray oo dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeya ay ahaayeen laakiin maanta adiga caruurtaada iyo wiilashaada ayaa booskii fadhiya oo mid kasta meel ku dhajisay oo mid kasta wasiir ku lamaarisay waxaan ku leenahay marka wax kugu filan waa haysataa dadka Soomaaliyeed inta ka badan fool xumayn 8 bilood baa kugu dhiman 8 bilood kugu dhiman si sharaf ku dhamayso dadka kale oo ka soo horjeedaan waxa kula shaqeeyeen 8 bilood kugu dhamaato dadka Soomaaliyeed doorasho ayagu ay maamulanayaan sidii madaxweyne ka horeeyay ayagu ay maamulanayaan oo waliba ay dadka mucaaradka ay maamulanayaan gacanta ku maamulanayaan ku wareej warqad qor halkaas mar jidkaasna mar halka meel aan ku furo ma jirto meel kasta oo marto oo kale waxay ku soo dhamaan doontaa jid xiran si hadda kor aad waad sheegtay ayana ka gelina kuwa gada la geeyo la soo celiyo dadka gada jooga hal heshiis dad kuwa reer gada aan ahayn la qaado ee meesha loo geeyay ayaguna ay meesha muxuu ah dhibaato dad u geystaan ayaguna ay dhibaato madaxweyne hadda waxaad ka sheekeynaysaa gadaad ka sheekeynaysaa ciidan baa la geeyay ciidan u dhalan baa la geeyay baad leedahay dadka Soomaaliyeed oo samaha jeceli ciidamada Soomaaliya ninku hadduu dariiska ciidanka qaato oo military iyo police noqdo iyo ciidamada kale oo nidaamiga oo Soomaaliyeed qabiil la mara jifana malahan sida saxda ah oo Soomaaliya ku badbaadi kartaa waa sidaas laakiin adigu hadda ereyadaada waxa ka muuqdo waxaad leedahay dadaan u dhalan baad qaadaad leedahay waana wax khaldan ciidamada Soomaaliya meel kasta la geyn karaa xilligii la geynahayay oo loo dirahayay waxaad ku mucaaradaysay oo ku fool xumaynaysay ayaad adiga maanta wadaa koobi kaad baatay filankii baad wadaa ciidamada hadda aad u qaaday gado u qaaday dhiig baad daatay ciidamadii Soomaaliya militariga ah baa islaayay kuwii Jubbaland iyo kuwii militariga ah oo Soomaaliya islaayay dhiig baad daatay waxaas oo dhan garbahaaga iyo qoortada suran yihiin waxaan ku leenahay marka wixii adigu aad shalay diidaysay oo kula fool xumaa baad maanta jidkii haysaa ka fiirso marka erayadaada dambe oo soo socda hadda maanta laga bilaabo ka fiirso waxaad samayn doontid rikoorka ku galahayaan hadday khaldan yihiin iyo hadday fiican yihiin aakhirna waa loo gudbi doontaa waxaan ku leenahay marka waxyaalaha adigu aad shalay haysatay oo aad dhahaysay oo aad marra jifeynaysay marra qabyaaladaysay marra aad danaha ka fiirsanaysay baa maanta adiga ku haysta adaa maanta dadka Soomaaliyeed isku leenahaya adaa hadda ka hor raaskan boon ciidamo fara badan ka dajiyay oo ay xuduudda Kenya u gudbeen adaa hadda Puntland burburinahaya oo Highland iyo Puntland iyo Khaatumo burburinahaya adaa hadda waxyaalaha Soomaaliya dadka ugu liito baadiyaha jooga ay fahmi karaan oo siyaasad xumada adaa ku dhaqmahaya marka wixii shalay sameeynayay oo diiday shalay waxaad diidaysay oo ka soo horjeeday oo aad cilada ka dhigaysay oo dawladda ka horeysay
كفول حمينيسي بعد ما أنت هيسا ودخل ضمبر هيسا مرك ودخل ضمبر هيسا ودري شرع الدين سبر هيسا وأدو فول حمينيسي هذا الشرع كدق لهاي به سكر وهذا له به الإيمان الصومالي وعيدمو الصومالي كده هي ميل كستال جين كرا ودنك الصومالي وهل ميل كستال دفاعي كران هذا القابك وهذا لهاي ما أنت الغلامة يابين لكن وح الشرع الدين يسي بعد ما أنت وضع إذا ما قلنا لنقدر الله ولا على هذا الجي تكنيك هتجيسي إذا ما تجيسي إذا كسوال سكوب برسي ميل كسر دجال كأبورتي مركا أديو دجيسو بس كالصومالي أنت كبدها بربرين waxaan kugu yeeraynaa anoo ku hadlayna shacabka Soomaaliyeed afka ku hadlayna waxaan ku leenahay talada dhulka dhig sharciga u soo noqo jooji jid kasta oo khaldan oo qaadana meel xiran ku soo dhamaan doona ku dhacdo kuwii reer gad ah in badan oo kamid inta la soo qaaday in xamar la keeno liraa adeerkiina daaficaysiin waxaas xigmad waa dhaqan min xikmadi ka dhamaatay dhaqankiisu waa madaxweynaha xikmadda ka dhamaatay madaxweyne walaalaha aanay annaga xikmad kuule aan gacan qabadkaadaan leenahay joog madaxweyne xikmadii baa ka dhamaatay 8 bilood ka yar baa ku haray annaga shacabka Soomaaliyeed annaga aaminsan inaan walaalahaan nahay annaga qabyaalad iyo jifaysi aan aaminsanayn annaga Soomaali nadiif rabna annaga Soomaali dawlad xoog la rabna xikmadii baa ka dhamaatay jidkii Soomaaliya ku hagaagi lahayd wallahi inaadan hayn adduunkan inaan la arag dad qabyaalad iyo jifaysi dawlad ku noqdo wallahi inaan nolosha la arag aysan jirin waxay ahayd dawlad Soomaaliyeed inaad ka shaqaysid oo midaysan oo qabyaalad iyo jifaysi aad meesha ka saartay ahayd jidkii lagu jeexay oo dadka cadowga oo Soomaaliya jeexeen baad haysaa 4.5 oo waliba fool xun oo jifaysan oo kasii fool xun oo la isku leeynahayo hub lagu keensanayo oo la isku dilahayo oo la isku caynahayo oo la isku cadaabayd haysataa jid khaldan baad haysaa marka xikmadii baa ka dhamaatay madaxweyne 8 bilood baan ku hartay inta ka badan sii socon talada dhulka dhig doorashada beenta aad wadid oo aad dadka ku qulaaminaysid oo ku kufsanaysid oo leedahay waa ku aqoonsanayaa santuuq baan ku keenayaa dowladda baan ka dhigayaa jifa kasta meel ba istaagi kartaa jifa loo kala gooy waxay maraysaa jifa hadda maraysaa jooji halka talada dhig Soomaaliya ka dhaxbax dhibta jooji xumaanta jooji gacmahan ka qabanayna jooji madaxweyne jooji ala ku jooji wadada aad ku socotaa meel fiican kuma dhamaato hortaaha ay dad badan qar fataq u yeesay u si hadaafayeen ayagoo u arkaa laaca aragtay laaga moogtay joogta laaca fiirin quruxda badan ee 20 sano 30 sano dalka ina ka talisa xagga kaaga muuqdo kaaga qarar badan ka sokeeyo laga dhacay